maxaan kuu sheegaa gaadhigii dhinaciisa kuiga lowgiibuu ku xidhay gaadhigii baa unda fadhinaa haddaan idhaahdo ma cuno feedhka iyo laasku waa ina daaweyne way saaray Minku dilaya. haa Qosolka iga daa Faadimo tani qosol boqol habe. waa qosol gariir uu i dilayaa gaadhigii buu ii xidhay wuxuu ileeyahay sheeg waan ku caawinayaa anaa ku caawinaya sheeg walaal balwad mali haddaan idhaahdo feedhka laad kuwii saaray sheegi maysid Horta waxay weydii ma keligii baa sheekooyinka qaar ka cadhooda mise waa ila cadhootaan cadhada xitaa iga ka haysa Faadimo haddaa ogtay adaa istoori lahaa ku soco naa sheeg anigu inaan ku caawin diyaar u ahay sheeg waxba ha iga qarin walaal ma cuno walaal walla iga tahay walaal xashiish shaqo kuma lihi walaal jaa shaqo kuma lihi walaal nin shaqo kuma lihi tiyo meel kasta ay kuusan tahay buu iga furaa gaadhiga أعوذ بالله من الشيطان gurigaan galaa wuxuu i soo wacayaa cabdilqaadirow 3 habeenimo 2 iyo barhka habeenimo anigoo hurda dalalow telefoon markaasaan booday saylan ma saari karo teleefonkayga awoodaan saylan ku saara mali markaan ka qabto ayuu odhanaya haa banaankan taaganay guriga hortiisa soo bax waa 3 habeenimo 2 iyo barhkii habeen war walaa xiriga naa soo bax baan ku hadal haygu celin hay waan ordaya waan u tegaya أركز ولا شيء قال سؤال عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي بني كل أري صدق هبي من ما التليفون قبل لا مصبح ليدن وحن ما سمعين ليدن هبلو يعني مو عروضي يعني مو ما حي حنون أي وحن كلام سمعيستان وان سمعنا وحن عادي وننكي وأوهيته ولقي ما سمعين وقصلك أنت هبلو سمعيس بنا نعلم كوس عف هذا ماي 3 habeenimo teleefonka marka adigoo hurdo lagu soo waco waad naxaysaa ma ogtahay waan naxaa markaan ka qabto guriga hortiisaan taaganay soo baxa waan u tagaa itus afkaaga balwadii maxaad caawa isticmaashay majaadkii mise shiishadii xashiishkii تكسي ده أنا ما أجا haa markaasaan walaal balwad malihi war walaal walla iga tahay walaal habeenkii oo dhan dhagahaan haystaa walaal wallaahi ma cuno walaal balwad malihi waad cabsan tahay qof hurdaysan dee hurdo ka soo kaca waad ka dhacsan tahay iminka waxaan ku arkaaba wejigaaga baan ka arkaa inaad ka dhacsan tahay أعوذ بالله war walaalo war maaha war sidaa maaha haddaan aan ka dhacsanahay walaal waxaad i weydiisaa maanta oo dhan waxaan ku wada hadlaynay berri shalay waxaanu islahayn tii ka horreysay waxaynu islahayn i weydii qodob iyo kelmad baan kuugu sheegaya markaas wuxuu leeyahay haa exactly halkaan rabaad kusoo dhacday balwadda haddaanad cunin yaa ku baray qofku inuu wax ilaabo markuu balwadda isticmaalo يا balwadda haddaadan isticmaalin yaa kuu sheegay qofku markuu balwad cuno inuu hadalka isdhaafiyo wax ilaabo yaa kuu sheegay iminka caddayntii koowaad baaban kugu haya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم saacad markuu meesha iigu soo haysto ayaan hadhow guriga imaadaa markaas hooyo waxay leedahay subaxii naa heedhe 3 habeenimo iyo 2 iyo barhkan habeenimaad sii ordaysid naga daaya albaabadan aad furfurayso ninka haddaad rabto ninkaaga dee fiidka u bax xilliga muslimka bax أما دو شيء هذا حتى hooyadii waxay moodaysaa inaan kool doonto xilligaasoo bilaayo kale i wado أعوذ بالله من الشيطان الرجيم markaasaan ku idhaahda hooyo hay haddii kalena naga daa 3 iyo 2 iyo barhkanaad sii socotid waxaan ile xilligan waxaan waa ceebo xilligay maanaan arag waqtiga weligay maanaan arag qof weyn oo waqtigaa baxaye ninkaagan haddaad rabto xilliga muslimku baxo bax oo haddaad rabto raaco habeenkii la soo seexo anaa aabbaha kaala hadlaye أعوذ بالله هو أنا يحكي دينك مو دول. زي كل كواي ninkooda waalo ay qaatay moodaysa لكن in مصاب balaayo kale marba dhinaca toosh laygaga ifinayo war kama hayso waliilay ilkahaaga kala qaado afka tus majaad baa ku yaala mise xashiish كل كم سقطت لكن markuu doonana intuu murmayo kumaba sintabe suu uu ii dilayo ii jugaynayo iska baxa ودي كم أرضيتي معنا كيس اسكتين arday iyo macalinkaaba la qaatiba إيه اللي بيقول شعاوة ها hooyaday markay i leedahayna xilliga muslimka baxo bax inagadaa 3 habeenimaad sii dhuq leedahay de waad xishoonaysaa de hooyadaa ila wax kale iyada u sawiranay anigana dhibaato kale ka weyn baa i haysata oo su'aal baan i weydiiyey marka gurigiisa geystana maxaa dhacay marka
markuu gurigiisa geysto maxaa dhacaya heen hooyalow hadduu bilaayo sidii iigu dhigay gaari yar baan markaa anigu leeyahay oon wataay maalinta dambe wuxuu igu yidhi dhegeyso maalin kasta waan ogahay in nin aad baabuurka ku qaado in maalin kasta shirka hore nin kuu saaran yahay in maalin kasta nin halkaa ku bahalkiyeeyo waxaad samaysaa walaa gaarigan igu soo wareeji aniga shaqada markaad aadayso anaa kuu imanaya gaariga kugu qaadaya shaqada ku geynaya shaqada markaad ka imanaysana aniga guriga ku keenaya ma gaarigaagii gaarigayga xilligan aan anigu shaqo tegayo maba kacaba isagu walaal ma kacaysid walaal shaqadan ka habsaamaya walaal taxi iima ogolid dhaweeye iima ogolid gaariga halkaasuun baan ku tagaa halkaasaan kaga imaada walaal idaa may haye baan ku uri gaarigii baan siiyey furihii ku dhiibay ma gaarigaagii waa gaarigaygii hablo gabadhan waa fariidaysa murdas fariid ka dhiga guys gabadhan waa fariid ninkeeda ilaashanaysaa gurigeeda ilaashanaysaa الله ku barakee ما شاء الله تبارك الله هي gaarigaygii qaaday aroortii baan wacay awal baan ogaa inaanu imanay waan wacay waan garaacay igama qaban waxaa khasaba inaan dadka guriga idhaahdo isii qaad ama aan taxi dalbado ama aan dhaweeye dalbado markaas hooyada waxay leedahay gaarigaagii mee ma odhan karayo nin baa balaaya ay haysatan qoorta kula jiraayo gaariga ninkii baa qaatay waxaan leeyahay geerishku ku jira gaariga لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هيا gaariga geerishku ku jira gaariga sidan uu yahay bir baa ka jabnayd waxbaa laga hagaajinaya walaa waanu isoo kaxayn walaa waanu igey dagaalkii iyo nin baad raacday iyo taleefonkii la baadhayay iyo balwad baad leedahaydina sidii bay u taagantahay cabdiqaadir waxay socoto tii oo socoto hadday adkaanaysaaye ayaa maalinta hadday adkaanaysa waa waree isugu caadi aan u fadhiistay adkaata samuurada ka dhiga ma gurigiiba kula tegaya talow cabdiqaadirow waxa dhacday wuxuu sameeyey wuxuu yidhi xaafadeeda aroos lahayd waan u sheego xaafadda aroos bay leedahay waayahay buu igu yiri koofeerkii baan tegey koofeerkii markaan tegey oo xinihii lay marinayo ayuu isoo wacay markaasuu igu yiri naa dhegeyso waan ku arkay gaarigii koofeerka kaa hor qaatay ee ku kaxaystay ee hoteelka kula tegey waan arkay walaal xaggaan joogaa hoteelkii waxaan joogaa koofeerkii naa waan arkayay waan ku ogaa awalba bahal dhimatay baad ahayd bahal sidana baad ahayd markuu to z waxaana lahayn abyo isir u lahayn iyo sinji iyo sawrac uu ii tiriyey ayuu wuxuu igu yidhi waad iga furan tahay weliba waan ku furay لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم waxaadan sidana ma sii qabi karayeenaa waan ku furay habeenkii arooskaaga markaa maya aroos kalaan tegay arooskaygii ma soo dhawo maba ogola ninkan inuu guri i geyste sanad iyo 6 bilood baan guriga reerkayga joogayo maalin kasta 3 habeenimo laylahaa soo baxo gaarigaasaa ii guriya mar laygu dilaa mar laygu xisaabiyaa marna taleefonkaan kaga qabta hablow furninkaa ma ka nexleedeen mise ku farxi leedeen ma nexleedeen markaa ma faraxday faatimo cabdilqaadir oo farxad iska daayo inta jahadii iga luntay albaabkii koofeerka laga baxayay makana mise waa kan gabadhaydii arooska u socotay ee farxadda u xinaysanaysay ee makeupkii wax rabtay inay marsato gabadhiiba waxay ku tiri saasaan u gariiray gabadhii xinaha gacantii maraysay gacmahayga basaa u gariiray ku tiri walaal maxaa kugu dhacay markaan ku walaal qof faamilkayga oo muhiim ii ah xanuunsanaya la soo sheegay iga daa xinana ma rabe xinii intaan iska meedhay ayaan soo baxay fariid hadday aarsanaysaa maasha allah waan soo baxay beerku saasuu ii dhex yaala qalbigu saasuu ii kala dilaacsan yahay qofkaad jeclayd noloshaadii ninkii adduunkaad ugu jeclayd ninkaad intaasoo dhan usoo sabartay ninkaad intaasoo dhan soo dhisaysay ninkaad intaasoo dhan naftaadii iyo maalkaagaba aad u hurtay yaa maanta sidaa yara fudud kuu furay oo kool baba baabuurka ku dhex qaban jirtay xitaa maxaa maad farxin
ما فرحين عبد القادر قلبي جو ماشي سوى كصافق ما يردح وسكياله وضنه باركو كدرا meel Ooyinka aan ma u tahay socdo wan ooya wayna meel aan u socdo iyo meel aan ka socdo ma kala garanayo maxaa kaa oynayay markaa ninkayga jacaylkayga waa lay furay furiin naxdin oo qaclaygaga siiyey ana filanay ma aan filanay waxaasoo dhib ah waxaasoo hadidaada waxaasoo abayuusa waxaas iima muuqa furiinkaygaga dara jacayl beeloo jahanamo gal kuma dhihi karee ninka markaa maxaad ku qabtay waa ninkaygii waan jeclahay fur iyo xanjalow weliba islaama markaa kale odhan jireen haya galmeedkan jiitow cabdiqaadir oo markaan sii socday ayuu ila soo hadlay markaasuu yidhi haa waad ku faraxday soo maaha intaasaad awalba doonaysay haya markaasaan ku uri i dhegayso furiinka adigaa keenay waxaad samaysaa marka xoogaa isyartii la sirgiiji baan leeyahay waxaad samaysaa timaha ciida ka cesho waxaad samaysaa gaadhigaygii iisoo sheeg meeshuu yaallo meel ii dhigo iigu ballami ama gaadhigaygii iisoo dir waan kuu soo dirayaa gaadhigaagana taleefonkii intuu sii caayay igu dhigay gurigaygii baan imi haa gurigaygii baan imi gurigaygii halkii baan oohin la fadhiistay habeenkii aroos ma tegin habeenkii habeen madow bay ii ahayd habeenkii habeen baas buu ii ahaa cabdiqaadir waagu markuu baryay subaxii baan hooyada u sheegay kuuhi hooye waxaa dhacay ma ogtahay markaasay igu tiri maxaa dhacay markaasaan kuuhi ninkii waan kala tagnay saasuu iigu yiri shalay wii furay waxba maan sheegin laakiin wixii dhib igu hayay maan sheegin mana sheegi karo wixii abiyuusii soo maray maan sheegin mana sheegi karo sababta uu ii caayay markaa iyo wuxuu ka masayray hinaasaha cidlada ah iyo waxaasoo dhan maan sheegin shalay bay soo wacay xoogaa hadalaha yar baan islaafsanay wuxuu igu yiri waan ku furay dee saa ula soco ilaajigii ma u raacaysaa maya umaan raacin cilaash anigu waan caafimaad qabaa ee jacayl iyo inuu ninkaygii yahay iyo inaan ninkayga ixtiraamo inaan ninkayga qanciyo inaan ninkayga raali geliyo unbaa saa ii gelaysa laakiin dee ma waalni cilaajna ma rabo haya hooyaday waxay ku tiri hooy raxmadi furan weligeed bay waxaan dhici jireen shalayna idinkaa iskeensaday markaa waan baqayaa markaan hooyada u sheegay waxaan ka baqayaa in laygu qayliyo adaa shalay keensaday shalay baan kuu sheegnay shalay baan kaaga dignay waxaasaan ka baqaya waxay igu tiri hooyo raxmadi furan inay yaro qurux badan baa tahay adduunkaaga waad u yar tahay noloshaada hore u wado haddii dee shalayna idinkaa isla kaaya yimi maantana aad idinku kala tagteen dee hore u soco haya wax dhiba maaha problem weyn ma jiro alxamdulilah hadaanayba hooyo igu qaylino xaafadii ay caadi u aragto normaal u aragtay isagii aan la hadlay waxaan ku war gaadhigaygii markaasuu waan kuu keenayaa berri waan kuu soo dhiibayaa sugde maxaad la qaylinaysaa gaadhi maxayade gaadhigaygii waxaan uga bariyey sidii qof isagu hanti uu leeyahay isii walaal aan leeyahay haya malabay abbaa ila soo xidhiidh inan baa tiri sheekadan kale ay haysataba adkaatay ku soco deetana waxaan ku iri maalintii dambe xoogaa intaan dhiig isyargeliyey cabdilqaadir walaashii iska dhigay ayaan idhi walaal dhegayso gaadhigayga rag baad iska arkaysaan oo wallaahi waxaad igu samaynayso dhan baa sheegaya oo rag baa ila dhasho dhalo ehel baan leeyahay ama gaadhigaygaad keeni ama rag baa wax alaale waxaad igu samaysaa rag baad iska arkaysaan markaasuu is irtay xaaladdu iyo xumaana fogaano markaasuu gaadhigii iisoo diray walaa firid baa noqotay haya bil markaan joognay cabdiqaadir buu soo noqday reerkaygii baan rabaa gabadhaydii baan rabaa boqoradaydii waan jeclaa noloshaydii bay ahayd kama maarmo adduunkeedaan ugu jeclahay iyada la-aanteed nolol ma jirto iyada la-aanteed xayaataba ma jirto maya walaalo waxaasoo dhibaataa baad igu haysay adiga isoo furay anigoo furiinka weydiisan intaasoo jug baad ii geysatay intaasoo aflagaadaad ii geysay inaan gogol dhaaf sameeyaad igu sheegtay inaan jaad cunaad igu sheegtay in xitaa walaaladay hablaha yar walaaladay jaadka cunaan baad igu sheegto kamaad xishoon xitaa seediyada iyo dumaashiyada inaan xashiish cabo ayaad igu sheegto bal jaadkaba ka sii weyn waxaanad igu sheegin jirkayga waa wada nabar gaadhigaagaa dhexdiisaad igu abayuusi jirtay hurdo iimaad ogolaan shaqada waxa kaaga daran anisaan xafiiska u joogaan arki jiray isagoo idil taagan oo gacmaha intuu saa isku dhaafsaday saa ii eegay acuudu billah haya habeen markuu ii dilayo faadhka ila dhacaya gaadhigii igu dhex dilaya waxaan ku arki jiray gaadhigiisa baaskoolad
een adoo waxaasoo dhib igu sameeya nolosheeda aanan cid u sheegin oo nolosheeda aanan ku odhan warqadii sii ayada adigu warqada ay siiso igaga naxiso anigoo koofeer joogo weligayna raacin oo asxaabteedii kaaga go-ayo hablo iyo rag iyo dumarba kaaga go-ay markaa ma rabo inaan kugu noqdo hooyadaybu markaa u tegay hooyoy maanta na dhexgal hooyo maanta isku duub hooyo maanta ii soo celi hooyo maanta adigu xaalka hooyo maanta